dibadbaxyo waaweyn ayaa xilligan waxay ka soconayaan qaybo kamid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dibadbaxa ugu horeeya ayaa ka bilowday degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Shacabka dhigaya dibadbaxa ayaa ku dhawaaqaya hal ku dhigyo ka dhan ah madaxweynaha madaxweynadkii lagu dhaariyay uu ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana dibadbaxan uu yahay kii horay 4 Juun ay u cilaamiyeen siyaasiyiinta mucaaradka. Waxaa sidoo kale la filayaa in degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ay sidoo kale ay ka bilowdaan dibadbaxan ay horay ugu dhawaaqeen mucaaradka. dhinaca kale degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan goobaha ay ka soconayaan dagaalka waxaa ka bilowday barakac aad u xoogan iyadoo shacabka ay ka cabsi qabaan inay waxyeelo ay ka soo gaarto rasaasta ay isweydaarsanayaan labada dhinac ee kala ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca kale 24 saac ee la soo dhaafay qaybo kamid ah magaalada caasimadda Muqdisho waxaa ka dhacay dagaal culus oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. si gaar ah dagaalkan ayaa kaga dhacay guriga caasimadda Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo ilaa xilligan aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah maadaama dagaalka xilligan weli uu soconayo labada dhinacna isku adeegsanayaan hubkan si kala duwan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in amar ay ku bixisay in gacanta lagu soo dhigo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxaana sidoo kale dhankiisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka dhawaajiyay inta uu haysto in hal baalooto uu ridi karo uusan isku dhiibi doonin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu dagaaltami doono. wixii xogay macluumaad ee ku soo kordho banaanbaxan ka soconaya qaybo kamid ah magaalada caasimadda Muqdisho muuqaaladeena xiga ay idin kugu soo gudbin doonaa. caqabad kasta waxay leedahay xal marwa fertility center waa xalka caafimaad ee ugu fiican xagga taranka. waxa ay ku keentay adeegyo casri ah oo ka caawinaya inaad gaarto riyadaada qoys, baaritaan iyo daaweyn heer sare ah ayaa ku diyaar ah. wixii faahfaahina